fiirsa shawaawa hawa lama huraan fiirsasho lama huraan haween biyo wax naga maqashay haween biyo lagu baray been ku noolo oo lagu fahan saada cali warsame anaa dooranaya weliba heestii cunaabi hadduu caawa igu yidhi badda cagaha geliyo wax naga maqashay iyada hadduu caawa igu yidhi badda cagaha geliyo mar kale meel kastoo aad joogtaan halkani waa aqoonsi TV aniguna waa Mustafa Xajaadan Haarun barkulanka bulshada Soomaaliyeed fanaanad Soomaaliyeed oo degan qurbaha gaar ahaan qaaradda Yurub suhur ku soo dhawow barnaamijka Sheekh Sacaada iyo Shan Saacadood waan dhawahay walaalkay Mustafa aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed suhuray waan kaaga mahadnaqaynaa inaad qayb ka tahay barnaamijka Sheekh Sacaada iyo Shan Saacadood isla markaana aad ka mid noqoto dadkii ugu horeeyay lagu furo waxaan doonayaa inaan shanteeda su'aalood ka kala dhigo heesihii waa hore heesihii dhexe iyo heesaad adigu leedahay kadibna aan ku xujeysto kadibna aan adiga ku siiyo su'aasha shanaad cidda waxay noqon doonto waxaan kugu bilaabayaa number 1 anaana dooranaya waxaan doortay Xaliimo Xasan Tooxow kala fanaanadan jeclay Xaliimo Xasan Tooxow adduunyadu waa firash alqigu wadaafuhu shayahay faruuriyaha laga hadliyo isfaan bareer xukuma sidiidaba fiinta ubax fagaaraha ka muuqashayo filsamida ha lagu gartaye filsamida lagu gartaye ciladu faa'iida male fursadii waa ha iska lumin ciladu faa'iida male fursadii waa ha iska lumin ruuxii kugu filanaya fayoobida kaahili fiirsasho waawa hawa lama huraan fiirsasho waawa hawa lama huraan fiirsasho lama huraan okay aad baad mahadsan tahay codkaasi nature-ka ama dabiiciga ama unique ah ee aad ku qaaday Allah u naxariistay heestii ay lahayd Xaliimo Xasan Tooxow oo ahayd fanaaniintii Soomaalida xilligoodii loogu jeclaa suuray mar kale halka dhaxan kala soo boodaya haga hore waan kala dhexda waan kala boodaya hoos baan kula aadaya waxa jirtay dhawaan heesad soo qaaday oo la yiraahdo haween biye oo runtii sira badan oo dhalinyaradu ay lahayd aad ka shiftay oo bal haween biyo wax naga maqashay haween biyo lagu baray been ku noolo oo lagu fahan laga bogay warkaagii kana baxay baddaadii adigoon mid bili karin boqri karintuu ku nugul bal maxaad niyobaas afar ugu baridha maxaad laba boglaysaa hadba taad isbarataan bari ugu tilmaantaa midaad bay la joogtana barqo uga dhaqaaqda yes ma iku idin waayo sababta barnaamijkeena waxa weeye Sheekh Sacaada iyo Shan Saacadood shirka saalada quraan ku koobnaanaya tii saddexaad baan imika guda gelaya runtii codkaaga talentiga ah unique ah waxaan oran karaa waa masha Allah way ay soo noqono xaggii fogeyd baan kula aaday haddana halkii iminkaan kula imid waan kula noqonayaa diyaaradda dib baan u celinayaa luftaasaynu dib u raacaynaa luftaas waa diyaaradaha Jarmalka ama adduunka ugu qaalisan waxaynu istaagnaa barta dhexe Ikraan Jaamac wax naga maqashay Ikraan Jaamac fanaanadan jeclahay oo waliba si gaar ah u taageero horta aad baan u salaamayaa heesaheeda kulli heestan aad u jeclahay naf jacaylku guud furay kuma naxda soorto qalbi nabar ku yaala niyadu maladaye
ruuxaad unugusho noloshiisa waydana aragiisa nuuriyo waa kugu nasteexe nawilo adduunyada nasiibkaaga dhowr nasiibkaaga undhowr nasiibkaaga un dhowr maasha allah yaa wuduud waa halkii guri barwaaqe waxaa odhan jiray kamaha keliya hee kalaa intuu af hindi inoo akriyo aad baan u salaamaya lejankaasi suuray mar kale waxaan joogaya halkaa dhexe soo celin maayo su-aashayda shanaad intaanan gaadhinta afraad waxay noqonaysaa halkaa dhexaad joogtaa saada cali warsame anaa dooranaya weliba heestii cunaabi hadduu caawa igu yidhi badda cagaha geliyo wax naga maqashay iyada hadduu caawa igu yidhi badda cagaha geliyo timaha caarada oo soo xidho cumaaniga calafwa halkiise cashaqa aan iskeen baaday haygu curaynin anige ku cugtaye ma nabadba waa hagaag halkaa igu jooji caashaqan iskee baray haygu celinin anige ku cugtay ma nabad ba allah u naxariisto saada cali warsame iyadiyo intii geeriyootayba waynu u ducaynaynaa shiksi caadiya su-aasheeda u dambaysa waxay noqonaysaa suuray waxaad haysataa lacag 10 euro ama $10 waxaa imtixaan iskale walaalka sidoo kale waxaa ballan shaqale ninkaaga 10 eurona mid quru tigidkiisa gooya uu tareenka ku raacayo labadoodana ma rabo in mid ka xanaaqo adigoo bal caqligaaga IQ-gaaga miisaamaya meeshuna saacad bay ku jirtaa haddii la sihawday u socda oo u lugeeya yaa 10 euro yaad siin lahayd baska ka bixin lahayd ama tareenka ka bixin lahayd mustafa maskaxdeeda mashquulinaysa wallaahi horta waa hawl adag walaalka iyo ninkayga kulli deen mar kastaba lambar 1 waxaa nolosha ka ah walaalkay anigoo ninkaygana fogeynin inuu yahay xaajigeygii walaalkay baan 10 euro siin lahaa markaa ninkiina maxaa laga yeelayaa waa kale waa arrin adag meeshu saacad bay jirtaa maaha kulle dee ninkaygaan dhibta la qaybsan lahaayo haddaa wax kala garan waayo saacaddaasaan la lugeyn lahaa IQ fiican ninkaagana waan la lugeyn lahaa maadaama meeshu saacad jirto 10 subaxnimona uu ballan leeyahay 8aad iska bixi lahaydeen 2 saacadood ka hor kadibna tartiib oo isaga socon lahaydeen ninkaagu saasuu raalli ku noqonaya 10 eurona walaalkaa saasuu raalli ku noqonaya waan kaaga mahad celinayaa barnaamijka ka qaybgalkiisa suhuur ismaaciil jaamac suhuur xabado fanaaniinta waayihii ugu dambeeyey aadka ugu shidnaa ama bulshadu ay aadka u daawanaysay waa halkii xasanto wuxuu yidhi aadka ugu shidnaa suurayaad salaamaysaa walaalka horta waad baad mahadsantahay fursadda qaaliga waxaan kaga faa'iidaysanayaa faamilkayga walaaladay hooyaday caruurtayda dhammaan asxaabtayda dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa asxaabtaydana muriya laba kusoo koobi karin aad waxaan usii salaamayaa macalinkayga sarqaawi walaashay graan caraale kolley de 1 iyo 2 ma kusoo qaban karo dhammaantiin waxaan leeyahay waan idin jeclahay dhammaan ummadda afka soomaaliya ku hadasha fanaan abwaan iyo inta kaleba waan aad baan u salaamayaa adna walaalkay aad baan kuu salaamayaa waxaan idin leeyahay bin wanaagsan dhammaantiin adigaa mudan walaalo anigoo bulshada ka wakiilana waan kaa qaaday sidoo kale sarqaawi iyo ikraamba aad baan kuula salaamaya labadaasi la jiran halkani waa aqoonsi TV anigu waa Mustafa Xajaadan barnaamijku waxa uu ahaa shaqsi caan iyo shaqsi su'aalood waxa martii ugu ahayd Suhuur Ismaaciil Jaamac Suhuur xabado oo ah fanaaniinta Soomaaliyeed kooda qurbo joogta gaar ahaan qaarada Yurub kulanti dambe barnaamijkan barnaamij lamida ama barnaamijyo kale inta ku kulmayno sidaas iyo fi amaan Allah